safar uu ku imanayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya gudaha Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan caasimadda gobolka Sool ee Laascaanood ayaa cadeynaya in dagaalkii ka socday labadii sano ugu dambeeyay gobolka Sool gaar ahaan caasimadiisa Laascaanood inay ka dambeysay dawladda federaalkii isla markaasina ay xoog iyo xidhiin iyo xoolaba iyagu la garab taagnaayeen sidii khalkhal looga dhalin lahaa qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee nabadda ku naaloonayay 34 sano ee dambe taa beddelkeedana dawladda federaalku ay la taag darayd dagaalo gudaheeda ka socdo isla markaasina ilaa hadda ka dhex socda caasimadda dawladdaasi federaalka ee Soomaaliya gudaheeda iyadoo irboodka ay ka soo duulayaan ay duqeynayaan ciidamada aas halkii ay gudaheeda ka hagaajisan lahaayeen ayaa waxaa caddaatay inay weli dab ka dhex shidayaan qarankan Jamhuuriyadda Somaliland ee la filayo in la aqoonsado toddobaadada soo socda ama sanadkan gudihiisa sidoo kalena safarkan Xamse Cabdi Barre uu ku imanayo caasimadda gobolkaasi Sool ee gudaha Somaliland ay ka soo horjeedaan dad ka mid ah dadka deegaanka Laascaanood sidoo kalena ay u arkaan dadka reer Somaliland ee isku tashaday safarkaasi uu ku imanayo gobolka Sool ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya inuu yahay mid cadaawad cusub ka dhex dhalinaya Jamhuuriyadda Somaliland iyo dalkaasi Soomaaliya oo ay wada hadallo uga socdeen beesha caalamka iyaduna waxaa xusid mudan in midowga Afrika loo doortay xubin reer Jabuuti ah gudoomiyaha midowga Afrika ee sanadahan gudoomiyahaasi ayaa ku tagay Muqdisho safar wada tashi oo kula tashanayay madaxda dawladdaasi federaalka ah taasoo ay ka dhalatay inuu safar ku yimaado ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya Xamse Cabdi Barre gudaha Somaliland gaar ahaan meelihii dagaalka laga oogay ee caasimadda gobolka Sool ee Laascaanood safarkaasi iyo hadimadaasi ayaa iyadana waxa cad inay ka dambayso dalkaasi Jabuuti oo maanta hogaaminaya midowga Afrika isla markaasina u muuqata inuu soo abaabulay safarkan cusub dagaaladan hor kale ay ku soo qaaday dawladda federaalka iyo dalkaasi Jabuuti gudaha Somaliland ayaa u muuqda mid aan loo kala hadhin isla markaasina u baahan inay u madoobaan shacabka qarankan Jamhuuriyadda Somaliland ee weerarka lagu hayo mar walba nabadgelyadooda iyo weliba dawladnimadooda warkan warlimada inta aynu ku kulmi doono waa anigoo Cabdisalaan Maxamed Badow idin leh sidaa iyo nabadgelyo